maadaama ay jawaabtiina haa u badatay waxaa jeclaystay inaa idinla wadaago sheekadii idilahay iyo daranahay hala ii daayo isagaa idaweyn. anigoo 18 jir ee sanadkii ugu dambeeyay iskoolka secondary school aan waxaa isbaranay wiil xaafadda ku cusub oo iskoolkeena loo soo bedelay xaafaddana soo dageen. laakiin aniga waxaa ahaa markii hore gabar ina adeerkeed u joogto oo reerkeyga familkeyga waxay isiiyeen ina adeerkey waxaa la idhahay iskoolka haddaa dhamaysid waa lagu aroosina isku ugu nina lagugu daraa. laakiin aniga ina adeerkey sheekana ma dhexmarin. markii aan wiilkaa isbaranay oo xoogaa aan sheekaysanay oo xiriirna dhexmaray aada oga helay. ma dhihi kara waa jeclaaday maxaa yeelay waxyaalo badanaa ka horeeya jecelka, kahelidaa ka horeyso, isfahan iyo kalsooni labada qof dhexmarto. markii aan wiilka aan cabaar sheekaysano xoogaa aan sheekaysano waxaan bilaabay faamilkeyga inaan ku dhaho aniga haddii aan dhameeyo iskoolka jaamacadan dhiganaa guur diyaar uma ihi iyo waxyaalo noocaas ah. waxaa laygu dhahay hooyaday waxay tiri adoo reerkaaga dhaqanaysid oo gurigaaga joogtid jaamacadna dhigan kartaa, yacni waa naga go-antahay ninkan waa lagugu daraa. xoogaa markaan joogay adiga waxaan u sheegay wiilkii waxaan dhahay ani ina adeerkaya u joogaa. laakiin aniga run ahaantii wiilka aada oga helay shakhsiyadiisa, quruxdiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan. waa u sheegay waxaan dhahay ani ina adeerkaya la isiiyey ogow. wuxuu igu dhahay waa fiicnaan lahayd waana jeclaan lahaa inaad noqotid ilmahayga hooyadood, laakiin qadarta ma hor istaagi karno, haddii aan calaf isku leenahay waa isheleynaa. sheekadii aniga aaday ii soo jiidatay, yacni kelmadaas way i taabatay. waxaan dhahay faamilkeyga u sheegaa haddii aa guur iga rabtid oo mustaqbal aa iga rabtid, faamilkeyga u sheegaa aniga in adeerkay ma la igu qasbaayo, mana rabo guur la igu qasbay ma rabo, isoo doono. wuxuu dhahay diyaar waaye, laakiin faamilkaaga u sheeg horta. hooyadayaa u sheegay, tartiibaa u sheegay. waxaan dhahay hooyooy aniga ninaa isbaranay oo aan rabaa inaan isguursano, ma raba ina adeerkay inaan guursado, ninkaasna mustaqbaloo iga rabaa, nin weyn waaye, macnaha waa iga weynyaa, aada iga da-weynyaa, markaas aniga aada u da-yaraay. marka waxay dhahday hooyadayaa u sheegay, marka waxay dhahday hooyaday aabaha ha loo sheegaa, ma lagu qasbaayo, haddii oo mustaqbalkaa rabo ha kusoo doonto. alxamdulilah iskoolkii aan dhammeynay, aabahayaa loo sheegay arrintii iskoolkii markii aan dhammeynay oo iskoolaadkii la xiray, wiilkii waa isoo doontay. maasha allah waa la iigu daray, calafaa ilaahay iigu daray ninkii aan jeclaa. markii aan isguursana kadibna aada